kulanti wacan oo wanaagsan asxaabteena qaaliga ee ku taxan channelkan xog bixinta wararka meel walba aad joogtaan iyo waqti walba ay tahay waxaan leenahay ni wanaagsan waqtigu ilaahay gacanta ku barakay fadlan like saar muuqaalkan si uu si gaaro dad badan oo kamid ah asxaabteena waanad ku mahadsantahay markasta dhiirigelinta iyo dadaalka weyn aad nooga jirta saaxiib sidoo kale kanaalka dad hore ugu soo biirin waxaan ka codsanayaa inaad jidhowga horeysaba aad muuqaalkan aad daawanaysa subscribe saarto channelkan siina share gareyso oo la wadaagta asxaabteena daawada maanta waxaan ka hadli doonaa arrin 24 saac baraha bulshada saameyn ku yeelatay waa kuma walamaanahii muddo ka yar isla wadaaga jacaylka xubbiga gaaray kaas oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Anshax fanaanka Cabdirasaaq Anshax iyo xaaskiisa Adabsan runtii labadan lamaana ayaa bila ka hor is aroostay kadib markii xaflad aroos oo heer sare oo si wacan loo soo abaabulay ay ka qabsadeen magaalada madaxda Soomaalida deegaanka ee Jigjiga sidoo kale Cabdirasaaq Anshax ayaa fadhigiisa ahaa Hargeysa Harwanaag sidoo kale Cabdirasaaq Anshax ayaa waxaa fanaan cod tolman oo muddo iskaablo ahaa sidoo kale Cabdirasaaq Anshax ayaa ahaa nin aad u wacan oo wanaagsan oo qadariya shanta Soomaali meel walba ay joogtaan sidoo kale fanaanka Cabdirasaaq Anshax ayaa ka qayb galay dhowr sano ka hor xafladda sanad guuradii ee Puntland State kaasoo uu qaabilay madaxweynaha hadda xilka haya ee Puntland Saciid Cabdullaahi Deni kadib markii uu ku soo noqday Somaliland ayaa xabsi dadku ugu baaqeen laakiin Somaliland ayaanan xirin oo wuxuu ka mid ahaa fanaaniinta sida weyn looga hadlayay laha waa la xiriya kadib markii la xiri waayay sidoo kale Cabdirasaaq Anshax ayaa heesihiisa saameyn markay soo baxaan ay ku yeeshaan Cabdirasaaq Anshax ayaa ah fanaan afkaaban oo baraha bulshada aan isagu wax buuq ah ka dhalin sida fanaaniinta qaar marka ay isqabsadaan buuqooda oo social media haba gilgilo sidoo kale Cabdirasaaq Anshax waa fanaan bila ka hor guursaday sidoo kale ayaa jacaylkiisa xuskii dhalashada qarniga u dhigay sidoo kale fanaanka Cabdirasaaq Anshax ayaa isla xaadirkan Somaliland jooga ee gaar ahaan caasimadda Somaliland ee Hargeysa sidoo kale Cabdirasaaq Anshax ayaa familkiisu iyo sidoo kale ay ku dhaqayeen runtii marka la eego hooyadii iyo aabihii ayaa waxa ku dhaqan Hargeysa sidoo kale xaaskiisa oo iyaduna ahayd dadka reer Hargeysa ay dhalinyarta ay ku soo warbarbaareen kadib markii si wacan arooskiisa loogu qaabilay magaalada madaxda Jigjiga ee Soomaaliya deegaanka Itoobiya haddaba sidoo kale Cabdirasaaq Anshax ayaa ka hadlay arrinkii 24 saac baraha bulshada haystay ee ahaa furniinkiisa in xaaskiisii Adabsan ay kala tagaan sidoo hadal gaaban ba u sheegay oo yiri xaaskayga hadii aan kala tagayno sidoo baraha bulshada ku soo qoray way xaaskayga hadii aan kala tagayno maanta ba xaflad aroos uma dhigeen kadib markii uu xaflad aroos ugu dhigay caasimadda Hargeysa ee Somaliland ayaa 24 saac baraha bulshada dadka ku qaada dhigeen dadka nacab sidoo kale Cabdirasaaq Anshax dadka nacab ayaa social media ku faafinay oo lahaa Cabdirasaaq Anshax iyo xaaskiisa Adabsan way kala tagaan oo jacaylkeedii xubbiga ay bilisoo wadeen dartood xabsi u galeen si ay jacaylkooda u mideeyaan bartaas ayuu ku burburay laakiin isagoo hadal gaaban bartiisa Facebook uu ku leeyahay Cabdirasaaq Anshax oo fashil ku soo qoray in xaaskiisa kala tagan xaaskiisa aanay kala tagin sidoo kale ay noqotay Soomaalidu in ay dadka jecel ee xad dhaafka isku jecel in ay kala diraan oo sida qamriyo nugbaad aragtan sidoo kale waan ogaad Rashka Boy iyo Xafsa oo ahaa lamaanayaal yaryar oo YouTuber oo ka soo jeeday halka iyo Nairobi ee waddanka Kenya dadka Soomaalida ayaa noqotay dad beenta faafiya 24 saac haddaba halkani waa kanaalka xog bixinta wararka oo u taagan mar walba inuu soo gudbiyo xog bixinta iyo rasmitiga 24 saac baraha bulshada ka taagan ballankeena waa 1 milyan subscribe saaxiib meel walba aad joogtaan waqtigu hani wanaagsanaa nabad saaxiib